dhulkii hooyadii aabii ku noolaayeen ilaahay ku cadhaysiinaya xumeel kale u tali karaa qase rag baa ku noolde rag baa difaacanaya rag baa rag u dhashay oo ku difaacanaya oo ku jihaadaya oo ku dhimanaya oo shiid aynu rajaynayna ninka difaaci kara iyo qofka difaaci kara wuxuu qaban karaa waxa weeyaan qoftiisa meel saaran in diinta iyo siyaasaddu ma kala saaro waa isla mid oo nabi maxamed diinta iyo siyaasadaba uu ku maamulay wadankiisa Khalid Kaamil kan aan ma garanayaba weligeena ma aan mana garanayo su'aasha la weydiiyay baan isaga ku jirtay anu ma garanayo xad horan uma aqoon ka yara dhalinyarada laakiin ariku salaado ilaahay subhanahu wa ta'ala maali walba kaga cadhaysiinaya oo dhulkii hooyadii aabii ku noolaayeen ilaahay ku cadhaysiinaya xumeel kale u tali karaa qase rag baa ku noolde rag baa difaacanaya rag baa rag u dhashay oo ku difaacanaya oo ku jihaadaya oo ku dhimanaya oo shiid aynu rajaynayna ninka difaaci kara iyo qofka difaaci kara wuxuu qaban karaa waxa weeyaan qoftiisa meel saaray oo su'aalaha aakhire la weydiinayo 1 iyo 2 iyo 3 aan ahayn horta meel saaray ayaa markaa islaamnimo u difaaci kara markaa su'aashu may ahayn qasaa laga soo horjeeda iyo qasaa la diidan yahay su'aashu waxa ahayd intaynaan meel kale isla gaarin qof waliba naftiisa iyo ehelkiisa horta ha xisaabiyo oo ha hagaaji ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay yaa ayyuhalladina aamanu quu anfusakum wa ahlikum naaran dadkii ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyo horta naftiina naar ka badbaadiya ehelkiina la ka badbaadiya qaraabada iyo jaarka marka laga badbaadinaya saasi dacwadu u soconaysaa wadanka islaam oo dhan aynu wax qaban karnaa diinta goorma siyaasad ka dhigteen diintu siyaasadda iyo diintu ma kala badnaa afkaarta laga soo raray reer galbeedka ayaa diinta iyo siyaasadda kala saara markii waliba ay taariikhda hore ka sheekayn karaan waqtiga koobane ay nimankii kristaanku ay ku dhibeen diinta qoladii haysatay marka maxay ahayd meeshan ay ku caabudaan maxay magaceeda halkan ay ku caabudaan masaajidooda hayde kiniisadaha intii marka kiniisadaha ay ku kadeedeen wadaadadii kiniisadaas ay qaab kale diinta u isticmaaleen ayay dadkii naceen markaas dadkii lagu yiri diintii aynu kala saaro iyo Allahumma salli ala Muhammad iyo dunida laakiin diinta iyo siyaasaddu ma kala saaro waa isla mid oo nabi maxamed diinta iyo siyaasadaba uu ku maamulay wadankiisa qodobkaas waa qodobka diin iyo siyaasad lama kala saaree way wada socotaayo waxa la wixii diinta ku waafaqsan uma siyaasadeenu noo tahay diinteena wixii waafaqsan weeyaan siyaasaddu wixii diinteena ka duwan siyaasad lama idhaahdo wax kala leeyada wixii diinteena shariicadeena waafaqsan baa siyaasad la idhaayo sax waa qodobka kale anagu cidna dama aflagaatin dadka diintooda aanu ilaalin qofka marka uu ilaahay ka cabsan oo tuko oo aflagaadada iska daa oo heesaha iska daa oo waxa ilaahay ka cadhaysiinay iska daa oo wadankeena iyo dhulkeena aynu hooyadeen iyo aabeen ku noolay inagu aynu arsaaq ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga rajaynayno inuu oga fasaadka ma fadeexad ba waxaan oran lahayn ma khamriga cabaan dadka oran lahayn oo Allahumma salli ala yaasaatum oo wadanka xaga kale korba isku yimaada taasaan dadka la dhex taaganahay diintuna mar walba waxay la jaan qaataa dadka muslimiinta la jaan qaataa hadduu media ay dadku badan yihiin media looga sheegay hadday dadku masaajidu badan yihiin masaajida looga sheegay hadday dadku suuqa u badan yihiin suuqa looga sheegay laakiin la kala reeyay wadaadadii la oran ma idinku masaajidku inoo fadhiya sidii nimankii cubaada ahayd halka kaniisada dhex fadhiyay annaguna xaga suuqan tagan anu su'aal baa ku weydiiyay waxaan ku wali fanaan tukado oo masaajid soo inta Hargeysa ma joogo soo inta fanaan Hargeysa ma joogaan fanaan tukada dumarka ma hayaga dumarka talaga inay guriga ku tukadaan ragga soo masaajid waajib kuma aha wali miyaad aragtay su'aal baan ku weydiiyay adiga nin fanaan oo masaajid ka soo baxaya hay fanaanku hadduu tukado kan eedaynana ma hado fanaanka aan tukan iyo qof kasta oo aan tukanin weeyaan fariinta u dirsadaan waxa weeyaan fariintan u diraya waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala in laga cabso kow in la ogaado in la dhimanayo laba su'aalaha la isweydiinayo inay ugu horeyso salaada qofka ka tagayna cidna ma matali karo lafiisana ma matalo waxa la isku haystaa magaalba mise waa islaam waliba naska iyo sida daliilka xooga badan leh waxay u badan tahay qofka salaada ka tagay xujaduna ay ku oogan tahay cudurdaar aan lahayn inuu gaal yahay hala iska ilaaliyo wax badan ba waliba ayaa eel xerinaya waxa leeyahay sheekh waxa weey Khalid Kaamil way sayaan Khalid Kaamil kan aan ma garanayaba weligeena ma aan mana garanayo su'aasha la weydiiyay baan isaga ku jirtay anu ma garanayo xad horan uma aqoon ka yara dhalinyarada laakiin waxaan ka hadlayaa guud ahaan mar walba aniga hebel kuma jirteen hadalkayga mar kasta waxaan ka hadlayaa dadka dunuubaha ku jira waliba dunuubaha lala soo banbaxay ee jahriga laga dhigay lala soo banbaxay umada lagu soo daayay marka waxa ugu dheereeya fanaaniinta weeyaan in badan ma ka hadla fanaanku hadduu tukado muslim dambaabsan inuu yahay la isku haysto